Sidee ku ogaan kartaa qofku jecel? Haa, waa su'aal dad badan ay isweydiiyaan. Qofku jecel inta badanaa ma qariyo, xitaa hadduu hadal badan isticmaalin. Calaamadaha ugu caansan waa 5 calaamadood. Dabeecaddiisa ayuu ka muuqanayaa. Marka la joogto, wuxuu dareemayaa farxad dheeri ah. Indhahaaga ayuu fiiriyaa inta badan, si gaar ah wuxuu ku mashquulaa dhoolla caddeyntaada. Wuxuu jecel yahay inuu agtaada joogo ama uu kula hadlo. Waqti ayuu kuu huraa, wuu ku raadiyaa, wuuna ku soo wacaa ama fariimo ayuu kula soo wadaagaa. Wuxuu helaa waqti oo ka badan inta uu geliyo naftiisa. Wuxuu xusuustaa waxyaabo aad horay ugu sheegtay. Midda 3, dan iyo daryeel ayuu kuu muujiyaa. Wuxuu ku weydiiyaa sida aad tahay, caafimaadkaaga, niyadaada. Marka aad murugsan tahay, wuu kula dareemaa, wuxuuna kugu taageeraa talo iyo ficil labadaba. Midda 4, kaftan iyo masir yar. Wuu kula kaftamaa, mararka qaarna si gaar ah ayuu kaaga qosliyaa. Haddii uu qof ku soo dhowaado, wuxuu dareemaa masiir daran, xitaa hadduusan kuu muujin. Midda 5 ugu dambeysa ayaa ah qorshe ayuu kula wadaagaa. Wuxuu ka hadlaa mustaqbalka ama waxa uu jeclaan lahaa inaad wada samaysaan, wuxuuna tixgeliyaa go'aamadaada. Laakiinse xasuusnow, qof walba si gaar ayuu u muujiyaa jaceylkiisa. Calaamadahani ma ahan mid mar walba oo suuragal ah oo qof walba laga yaabaa oo calaamadahan lagu arko in ay tahay mid jaceyl u muujinaya. Balse hadduusan qofka si toos ah oo hadal oo muujinaya in jaceylkiisa uu ku soo bandhigayo uusan kuu sheegin, inta badan qodobadani waxaa suuragal ah inaysan qofkaasi aysan ku dabaqmaynin.